Dubai konton sano ka hor waxaa u diiwaan gashnaa 13 gaari oo kaliya. Maanta waxaa dhexdeedu yaal in ka badan 2 milyan oo gawaari ah, waxaana ku nool in ka badan 3 milyan oo qof, halkay konton sano ka hor ku noolaayeen 73,000 oo qof. In ka badan 200 oo dhismayaal dhaadheer ayaa ku yaalan gudaheeda. Waa magaalo leh dhismaha ugu badan ee dhaadheer. Boqolka daarood ee dunida ugu dheer 22 ka mid waxay dhacaan Dubai. In la agsart videogan wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka inuu dad badan gaarsiiyo. waa magaalada uu dhacay isbitaalka ugu weyn dunida, tuulo yar oo isku bedeshay xarun ganacsi, dalxiis iyo duulimaadka dunida. Maanta dhaqaalaheedu 200 oo bilyan buu ku dhow yahay, ganacsigeedu 400 oo bilyan buu gaarayaa. Waa magaalo leh madaarka saddexaad ee ugu mashquulka badan dunida. sanad walba 90 milyan oo rakaab ayaa isticmaasho madaarka Dubai. Waxaa ku yaal dhismaha ugu dheer ee bini'aadan sameeyay koonkan, Burj Khalifa. sidoo kale hoteelka kaliya ee 7 star ah ee dunta ah ayaa dhaco Burj Al Arab. sidoo kale moolka ugu weyn dunidan ayaa dhaca Dubai Mall. dalxiisayaasha Dubai soo boqdo 20 milyan ayay kor u dhaafayaan sanadkii. waa magaalo booliiska isticmaalo baabuurta ugu qaalisan uguna dheereeya dunida, sida Ferrari iyo baabuurta la mid ah oo qiimaheedu yahay ugu yaraan 300,000. magaalada sidaas ah dhaqaalaheedu 90% waxa uu ka yimaadaa ganacsiga, dalxiiska, socdaalka, maalgashiga iyo hal-abuurka. 5% kaliya iyo wax ka sii yar baa shidaalka ka soo gala. waa magaalo ku tiirsanaanta shidaalka ka madax bannaan.